Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan daawadayaal dhegeystayaal kusoo dhawaada janalkeena bara shaybaar oo aad kala socotaan waxyaabaha la xiriira shaybaarka. Maanta topic-aan ka hadli doonaa ama cashirkaan soo qaadan doona wuxuu yahay waa maxay microbiology ama maxaa la dhahaa microbiology. Microbiology waa cilmi ka hadlo dhammaan waxyaabaha ilma aragtada ah. Haddii aan si guud u qeexno waa barashada dhammaan waxyaabaha nool kuwaasoo ay aad u yaryar ishana bini'aadamkana aysan arkin karin. Tusaale, bacteria iyo virus waa noocyo ka mid ah microbiology-ga ama markii la daraaseynayo microbiology waa labada qodob ugu muhiimsan ee la barto. Branches of microbiology waxaa ka mid ah virology, mycology iyo bacteriology. Waa maxay bacteria? Bacteria waa noole hal unugla ah kaasoo u dhaqdhaqaaqi karo meel kasto. Waa noole hal unugla ah kaasoo u dhaqdhaqaaqi karo meel kasto ama samaysan karo hosti badan. Reproduction of bacteria. Qaabkee ay u tarantaa bakteeriyadu? Haddii aanu fiirno nuuca ay u tarantaa ama qaabka ay u taranto bakteeriyada, bakteeriyadu waxay u tarantaa process la yiraahdo binary fission. Morphology bacteria waa maxay morphology-ga bacteria haddaanu fiirino daawadayaal dhegeystayaal. Bacteria waxaa loo qeybiyaa ilaa 4 qeybood morphology-ga ama shape-keeda. Morphology means the study of shape. Cocci ama cocci waxa la yiraahdo, bacilli waxa la yiraahdo, spirochetes waxa la yiraahdo iyo polymorphic waxa la yiraahdo. Haddii aan soo qaadano mid ugu horeysa oo ah cocci waa round ama nuuc ah camal wareeg ama garaangar camal ah. Bacilli nooca la yiraahdana waa nuuc u samaysan sida usha oo kale. Spirochetes nooca la yiraahdana waa nuuc u samaysan sida fiilada ama wire-ka oo kale, sida fiilada oo kale mid u samaysan weeyaan. Polymorphic mid la yiraahdana waa nuucyo badan tahay maxaa yeelay markasta waxay bedelataa deegaanka ama marxaladda markaas ay ku sugan tahay ku jidhaaye waxay u bedeshaa meel kale. Sidaa darteed waxaa la dhahaa variation of size and shape ayay samaysataa wax la yiraahdo. Sidaa darteed microbiology haddii aan si guud uga wada hadalno waa cilmi aan maxaa la dhahaa ka hadla mar walbo waxyaabaha aadka u yaryar ahna ilma aragtada isha bini'aadamka lagu arki karin. Tusaale waxaa la dhahaa microbiology markii laga hadlayo naked human being laguma arki karo. Sidoo kale maanta waxaan halkan ku daraaseynayna bacteria. Bacteria marka hore iyaduna waa unicellular organism kaasoo sameeya reproduction process-kiisana wuxuu yahay binary fission. Morphology-gana waxaa loo qeybiyaa ilaa 4 qeybood oo kala ah cocci, bacilli, spirochetes iyo polymorphic. Haddii aad cashirkan ka hesho dhammaan daawadayaal dhegeystayaal waxaan jeclahay inaad like iyo subscribe inoo saartaan. Shukran.